السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta, waxaan rajeynayaa inay caafimaad qabtaan dhammaantiin meel walba ay joogtaana. Maanta cashirkeena waxaa ku saabsan yahay posterkaan arnaa in asla sameyno social media poster design oo weliba simple ah. Posterkaan arnaa markiin asla sameyno marka hore Photoshop aan usoo dhexgelinaa. Photoshop markaan usoo dhexgalno waxaan leenahay new document markaan soo abuurno posterkaas runana sameyno application waxaa waaye horta oo qaybta unit ka tagaysaa meesha waxaa ka dhiganaysaa pixel cabirka runana sameyno waa 1080 under 1080 under 1080 waxaa loo isticmaalaa social media poster design oo isku weer ah Facebook iyo Instagram loo isticmaalaa. meesha qaybtan kor magacan ku qoraynaa poster ku qornina kabacdina waxaan tagaynaa meeshan oo ku qoran tahay create in meesha resolution kiisa waa ka bedeli kartaa 32 oo 300 taariikh ka dhigin kartaa sida cabirka oo quality-giisa. marka sidaan dhahno waxaan soo qaadan doonaa rectangle kale oo halkan aan dhigaynaa. marka sidaan dhahno kun aan ka dhigna times kun ay kun markaan dhahno wareedkii haydii kun markaa ka dhigno bacdana waxaan leenahay halkan dhexda ku adsinaysa marka markaas aan u dhigto inta horta midkaan dhiganin ka bacda midkaan igixir midkaan soo qaado oo halkan ku fidi oo inaan background ahaan u isticmaala rabaa sida ii dheh kalarkaan rabo inaan isticmaalo loogada halkan aan ka soo qaadanaya oo hore kan ugu sameynayay loogadaan rabo inaan kalar daarto halkan ii dhig. markaas sidaan dhahno kalarkaan inaan isticmaalo kalarkan marwalba kalar gooni inay isticmaasho oo qasban tahay kalarkaan inaan isticmaalno kalarkaas weli dhaagan ka dhiganayna midkan yar dhaaga ah kaasa ka dhigan doonaa. saa markaa dhahno inta waxaa kor noogu yarwood ilaa meelahaas noogeey kabacdi waxaa soo qaadan doonaa marka waxaa soo qaadan doonaa sawirka midkaan oo hoos leenahay waxaa tagaysaa meeshan ku qoran file kabacdina waxaa kasii dooranaysaa place oo halkaan sawirka soo gelinaysaa meesha ku yeelada yaqaan. sidaan markaa sawirka soo gelino aan gadaal u dhigaynaa wax yar markaas aan gadaal u dhigno kabacdina u hoos marinaynaa. sidaan markaa u hoos marino qaybtan kale oo rectangle ka tagaynaa opacity u dhigaynaa marka oo wax yar ilaa iyo sidaan ka dhigaynaa sidaan ka dhigi doonaa oo rectangle wax yar u dhigi doonaa. markaas sidaan ka dhigno oo rectangle oo gadaal u yar dhigno kabacdi waxaan tagaynaa midkii hore oo isha ka furi doonaa markaas oo furno asagoo u kormarinayna hadda u hooseeya oo kormarin doonaa isaga waxaan ka dhigaynaa marka oo shape number ka bisaarina oo fiilka ka qaadana waxaan ka dhigaynaa stroke waxaan ka dhigaynaa white oo ilaa iyo inta ku anfacaysa ka qaadanaysaa masaan aqna. saa markaa ka dhigno qaybtan kore loogada imanaysaa oo heer kor yar dhigaysaa oo idii shape yar soo qaadanaysaa qaybtan shapes ka qorata tagaysaa bacdina wax yar intaan leeyahay hoos oo soo yar dhigi doonaa markaas aan dhahno qaybtan shapes ka qoran markaa halkaa tagno kan dhigi doonaa iyadana qaybtan kala tagayna oo meeshan geeskan imaanayna properties ku qoran tahay waxyar oo soo laabi doonaa marka labada geesoodaan ka laabi doonaa labada geesood markaas aan u laabno loogada u kormarin doonaa marka oo sidaas aan yeelinaa. qaybtan kalena waxaa imaanayna markalkan rectangle oo ku filin doonaa rectangle-ka u filin doonaa marka qaybtan fiila tagaysaa meeshan waxaa ka dooranaysaa gradient ku qoran tahay markaas aan dhahno qaybtan horeysa waxaa ku shubinaysaa kalarkan meeshan intaa ku shubin meeshan waxaa tagaysaa halkan ku qoran tahay bise qaybtan waxaa ka dhigaysaa 180 oo hal dhinac aragno laba dhinac bis saasaan dhignaa. qaybtan kalena waxaa ka yar dhigaynaa marka yar dhaag inuu yar ahaado sidaa kale ka dhiganaya markaas sidaan dhahno sidaan markaa dhahno qaybtan waa soo qaadan doonaa marka qoraal soo qaadan doonaa halkan ku qorayna marka qoraalka fiirinaysaa
ilaa intaan ka dhigin doonaa farta aragtaa ku qoran tahay meeshan qaybtan farta laga maamushaa farta aragtaa ku qoran doontaa kan qoraal sida noogu qorano video boogsiinayna video inoo dheeraad marno saana leena marka kana rectangle soo qaadanaysaa oo halkan ku fidinaysaa kalarkiisa midkaan ka dhigaysaa qaybtan oo properties ku qoran tahay imaadaysaa kabacdina geesaha kasoo laabaysaa waxyar saasaan leedahay qaybta layeriska imaadaysaa oo kormarinaysaa marka oo sidaan ornaa isaga koobi ka baxsanaynaa koobi markaasaan u baxsanaa ku qoraynaa graphic design markaasaan ugu qorno qaybtan oo properties ku qoran tahay imaadaysaa markaana farta laga maamulaa marka qaybtan imaadaysaa sidaan leedahay marka imaadaysaa markaas kale iska maamulaysaa qaybtan oo control T leedahay oo dooranaysaa kabacdi soo yar weynaysaa marka qaybtan kale soo jiid halkan ku qor marka qoraalka hartaa ku qoran doontaa oo muhiimad kan kaligiisana isticmaasho maahan hartaa ku qoran kartaa sidaan iskaga qornaynaa meeshaan qoran meeshaan hoosan iyadana soo qoraalka camal ku qoraynaa qoraalka ku qornayn doona iyadana markaasaan ugu qorno waxaan leenahay control A kabacdina waa soo dhimayna marka taasa ka dhigana waa yareysiinaa oo wax yar control T leenahay wax yaraa ku daraysaa marka soo yiri muuqdaan rabaa taasaan ugu darto kabacdi hadda waa dhammaan dhisaankii kaliya waxaa dhimay meesha qaybta contactiga lagala soo xiriiri lahay kaliya waxaa dhimay qaybta contactiga lagala soo xiriiri lahay meeshaan tagaysaa marka contactiga lagala soo xiriiri lahay bisa dhiman saana leedahay marka labada icon soo degsanaysaa soo qaadanaysaa marka oo meesha harta ku aadsanaysaa ana halkaan gelinayna marka iconkan meesha sida loola soo deganay waa inta doonaa oo qaybta Google tagaysaa Google markaa tagto ku qoraysaa bis email icon qaybta phone-kan waxa ku qoraysaa phone icon diyaartina la soo degto saas loo isticmaalaa aynan sankeen hadda dhameystiraysa arkaysaanba oo sidaan loo sameeyaa poster design oo weli simple ah midkan aad iyo aad u fududahay waxaan rajeynayaa inaad soo practice garan doontaan oo ku soo celcelin doontaan intaan cashir lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.